السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة سوبر ليف ayaynu saaka warbixin yar oo kooban ka diyaarinaynaa. Shirkaddan waxay ka asaasan tahay Malaysia, dalka Malaysia. Shirkaddan waxaa lagu talagalay oo ay soo saartaa wax la yiraahdo dawooyinka heerbalka ah ee dhirta laga sameeyo. Dawooyinkeeda waxaa ka mid ah tan la yiraahdo STC30 ama STC30 iyadoo markaas waxay tahay waa Super Life Total Care. waa dawo general cudurrada general u daweynaysa cudur walba oo mataqaanay jirka bini'aadamka ku dhaca ama soo wajaha ka hortaggeeda iyo daweynteedaba leh. waxayna ka kooban tahay ilaa 5 geed iyo vitamin C ee dhirta laga soo ururiyo ayay ka kooban tahay. 5 geed waxaa ka mid ah tufaaxii baa ka mid ah, cinabkii baa ka mid ah, maxaan ku yiraahday bocorkii baa ka mid ah iyo wixii la halmaala. marka dhirtaas mid walba shaqo ayuu qabtaa markii uu kaligiis yahay. marka la isku darana waxay noqonayaan in iscaawiyayaal shaqo guud ayay qabanayaan. tusaale ahaan hadeer tufaaxa oo kale hadaan wax yar ka taabano, tufaaxu sidaan ogsoonahay waxa uu ka qayb qaataa qurxinta jirka iyo dhalaalida jirka ayuu ka qayb qaataa. wuxuu ka qayb qaataa wax la yiraahdo cell rejuvenation buu ka qayb qaataa in uu nooleeyo unugyada jirka. waxaa ka qayb qaadanaya sidoo kale in magaranaysa dheefshiidka waxyaalahaasna uu hagaajiyo. waxaa ka mid ah bocorka ka mid ah bocorkana isagana faa'iidooyinkiisa wax ka mid ah wuxuu horumarinayaa healthy levels oo dhan buu horumarinayaa qofka, sida magaranaysa difaaca jirkiisa, sida magaranaysa jirka in mataqaanaa waxyaalaha kale soo weeraraan oo dhibaatooyinka jirka soo wajaha oo kale. sidoo kale wuxuu ka qayb qaadanayaa dhalaalida jirka ayuu ka qayb qaadanayaa. haddaba dawooyinkan waa dawooyin la hubo la tijaabiyey maasha Allah dad badan ay ku caafimaadeen. waxaa markaas loo isticmaalayaa qaab kala duwan baa loo isticmaalayaa. dawada hal dawo maaha, waa dhowr dawo weeye. dawada tan STC-da baa ka mid ah, STC-da baa ka mid ah. kuwa kale insha Allah warbixin baan ka diyaarinaa diyaarada ka dhigo. haddii soo gaaro ha mogaanina Super Life xafiiskeeda Garowe iyo Boosaaso, Qardho iyo Xamar intaba insha Allah waa idinka furan yihiin xafiisyadu. online waa ku helaysaa, offline waa ku helaysaa intaba insha Allah. waxaan leeyahay khiyaari soo dhawaada. laba qaab oo shirkadda looga faa'iidaystana waxay kala yihiin ama 3 qaab iska dheh. qaabka koowaad waa in shirkadda aad ka hesho caafimaad ama aad ka hesho dawooyin tayo sare leh. qaabka labaad waa in shirkadda aad la shaqaysato, company-ga aad la shaqaysato, qaab fursad uu ku siinaya. qaabka saddexaadna inaad noqoto qof fagaare ka hadal ah oo aad ugu wanaagsan dadka sida loola hadlo. intaas ayaan kusoo koobinaa warbixinteena saaka. waa mahadsantiin.